iyadoo muddooyinkii dambe duleedka bari ee magaalada Buuhoodle laga waday dhismaha gagi diyaaradeed oo abid markii u horeysay ay yeelato magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa iminka waxaa la sheegay in garoonkaasi uu marayo meel gabagabo ah. dhismaha garoonkani oo ay bilaabeen dadka deegaanka oo kaashanaya qurba joogata deegaanka ayaa waxa uu soconayay muddo sanad ah waxaana hadda uu maraya meel ku dhow dhamaystir. guddiga gacanta ku haya dhismaha gegida diyaaradaha ee magaaladani Buuhoodle xilligani qabyada ah ayaa maanta waxa ay shir ku qabteen goobta uu garoonku ka socdo oo ku taala duleedka bari ee magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay Simaacu Qaal aqoon-yahano qurba joog ardayda iskuulada macallimiin iyo waalidiin. ujeedada shirka ayaa ahayd in guddiga garoonku uu soo bandhigaan halka uu marayo garoonka iyo waliba inta u hadhay. waa kan Xasan Faarax Baad oo ah gudoomiyaha guddiga gacanta ku haya dhismaha gegida diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle oo ka warbixinaya halka uu marayo garoonku isagoo bulshada deegaanka dal iyo dibadba ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhamaystirka garoonka oo uu sheegay in ay wax yar ka harsan tahay. waxaan leenahay qurba joog magaalada miyi iyo magaalaba dhulbahante reer Buuhoodle ama dhulbahantoo dhani ha u halgamo airportka walaalayaal oo si degdega waxa looga qabto. shan meelood marka laga dhigo meel baa hadhay marka guryaha laga reebo meesha ha loo soo dadaalo oo waxa loo qabto oo odayaasha iyo isimada iyo ciyaal iskuulkii oo aad arkaysaan hal la maqlo waxa ay ku hadlayaan iyo baahida ay u qabaan. assalaamu calaykum. dhanka kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Suldaan Siciid Cismaan Cali oo ka mid ah isimada gobolka Cayn. suldaanka ayaa baaq u diray dadka deegaanka iyo cidii kale ee danaynaysa inay ka soo qayb galaan dhamaystirka dhismaha garoonka. waxaan u daleenahay dadka dibadaha naga jira ee qurbaha iyo kii kasta meel kasta aad joogtaan oo aad ka dhageysanaysaanba halkaanu ka hadlaynaa waa airportka la samaynayo ee Buuhoodle ku yaala. haddii waxaa la yidhi mulac carruuri qabatay qaarna waa ku qorgooyo qaarna waa ku qoslaan saaka qaar bay cayaar la tahay. saaka Buuhoodle meesha uu marayaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin weeye. waa uun haatan aakhirka wuxuu gaari doonaa himilada kobta la doonayuu gaari doonaa. dadka inta dhagaysanaysa hadalladayada ee ka dhaga adag waa uun dantaa keeni doonta. waxaa jiri jirtay 10 waab isagoo Buuhoodle ah maantana 10 kun guri waa ka dhisan 13 kilomitir oo wareega baa dhismuhu marayaa. isagoo xirfad aan lahayn oo barkad lahayn baa jiri jirtay isagoo baraaga yar le baa jiri jirtay. maanta 2 riig baa ku furan 2 baraagood baa ka qodan. ilaahay nashaado badan buu siinayaa wuuna u kordhin doonaa. saaka waxaanu haynaa tacab cusub oo ka maqnaan jiray weeye in lagu soo kordhiyaanu doonaynaa. tacabkeenna iyo jeebkeenna ku jirtaa. maskaxiyana waa loo fekeroo raggii u fekeray si fiican bay u fekereen si fiicanna waa uga hawlgaleen si fiicanna waa ugu shaqeeyeen. waxaa jirta wuxuu u baahan yahay dhaqaale. xooluhuna kollayba way naga baxayaan waa adduunyo waxaynu gacanta ku haynaa. waxaanu leenahay waa deegaanka waa la kala degdegan yahay. beesha reerka dhulbahante iyo walaaladood iyo intii danaynaysa iyo inta habluhu dhaleen iyo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa haatan wax caawiyaba cid walba waxaanu ka doonaynaa inay soo caawiyaan airportka gacanna ka geystaan. dhinaca kalena waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Axmed Cabdi Guray oo ka mid ah qurba joogta deegaanka isla markaana ka mid ahaa dadkii maanta booqday dhismaha garoonka meesha uu marayo. Axmed ayaa baaq u jeediyay dhalinyarada deegaanka inay ka shaqeeyaan arrimaha dalkooda hooyo isla markaana ammaanka ku hayaan horumarinta dalkooda. waxaan leeyahay war jiilkii dalka u kacayay waa idinka. kuwa dhulka loo dhisaya ee madaarka loo dhisaya waa idinka. kuwa ka faa'iidaya ee ku faanaya ee qarannimadu kaga soo baxaysa waa idinka. dalkiina u soo jeesta ka qayb gala
dhista waxbarta waxaad tihiin madaxweynayaashii injineeradii baylotayaashii berito iyo dhakhtaradii himadiina kor u qaada eerboorka gacan siiya waa magaciinii waa jiritaankiinii waa dhaqaalihiinii dhalinyarada goldalool badan baa ka muuqanaya kuwa qaadka is-agtaaga ha noqonina kuwa wakhtiga iska lumiya ha noqonina ku dadaala inaad wax barataan oo meeshiina ka soo baxdaan oo bulshada adduunka aad la tartantaan si kastaba ha ahaatee shirkani maanta lagu qabtay xarunta garoonka diyaaradaha ee laga dhisayo duleedka bari ee degmada Buuhoodle ayaa ku soo beegmaya iyadoo la sheegay inuu marayo heer gabagaba ah uuna soo socday muddo hal sanada. Khadar Cawl Ismaaciil Daljir Buuhoodle.